بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم. waxaa runtii sharaf weyn noo ah maanta halka waxaan u fadhinaa gudayntii maalinta la qaadayo imtixaankii shahaadiga ahaa ee qaranka Soomaaliland ee fasalada afraad ee dugsiyada sare iyo fasalada sideedada dugsiyada dhexe. halkan waxaa dhinaca iga fadhiya wasiirkii wasaaradda waxbarashada Axmed Maxamed Diiriye. halkan waxaa iga fadhiya wasiir ku-xigeenkii. halka waxa waalid iyo ardayba idinka cad inaanu maanta halka waxaan u nimid waxa weeye inaan ku bishaareyno oo inoo sharciyeeyo wasiirkuna ku dhawaaqo officially maalintan imtixaanka insha Allah qaadi doono oo ah 17 bisha 6 haduu Ilaahay yiraahdo. waxa kale oo raacinayaa kaliya inta wixii kale ee faahfaahin badan wasiirka ka hadli doona laakiin anu waxaan jecel oo kaliya inaan ardayda halkan horta uga hambaliyayna ardayda imtixaanka u fadhiisanaysa mid baan ka dardaarma had iyo jeer way yaqaanaan ardayduna waxa weeye bahalkan mobilka la yiraahdo iyo guud ahaanba wixii elektrooniga ee qishka ku lug leh iyo cid kasta oo ku kaalmaysa ardayda lugooyada waa lugooyo qishku diinteena wanaagsanina nooma ogolay islaamku waad maqlayseen habeen dhaweyto khayr Allah siiyo waxa dhageysanaya sheekh muxaadaro ka hadlayay qishka sheekh Cabdullaahi Berberaawi runtii khayr Allah siiyo wuxuu diinteenu ka qabto ka hadlay marka dad muslimiin nahay waxaan ardayda aad iyo waalidiinta ugu adkaynaya iyo cid kasto ku lug yeelata inay ardayda ku caawiyaan qishkaasi waxba uma tareysare waa lu gooynaysan waxaanad moodaa ardaydeeni intooda badani inay isku haleeyaan jiitinka waana khasaaro dalka uu ku baaba'aya marka waxaan ardayda u sheegayaa imtixaanku ka iskuulada laga qaado ayaaba ka adag waxa uu khalkhalkan ardaydu isku ridaysan inta iska daayaan si degan ha ugu diyaar garoobaan anigu waxaan aaminsanahay ka xafiis imtixaan ahaan in labada imtixaanka iskuulada lagu qaada oo ka adag yahay macallimiintu ka qaata marka inaad istajiso waxa muhiim oo kaliya inaad istajiso adigoo degan oo nastay aad imtixaanka gasho waxaana khalkhalun bay keenaan moobiladan iyo cheatingku waan hubaa hadii waxaad ku taqaanuun aad ka shaqeyso inaad gudbaysid waxaan jecelahay marka fariintaasna waalidiinta inay caruurta lixda cisho imtixaanku socdo inuu ma taqaanaa ay lixda cisho ay moobilka ka ilaaliyaan waxa kale oo jecelahay ka hadlo kalendarka wasaaradda waxbarashadu ay diyaarisay wuxuu ku beegnaa imtixaanku inuu dhaco bisha 10keega wiiga labaad sabtida labaad ee bisha 6aad buu qorsho ahaa runtii kaasaan ku tala galsanayn waxaad moodaa imika inaan 7 dib uga dhacnay sababtuna wax kale maahay waxaan isla eegeegnay commissionka doorashooyinka iyo waxaan isla wada eegeegnay wasaaradda iyo annaga iyo iyagu waan isla wada eegeegnay dabeet waxaan isla garanay inaan intii aanu sahankiyo surveyga wadanay waxaan markaa isla garanay inaan weegan dib loo dhigi karo ayaan wasaarad ahaan iyo xafiis imtixaana markaanu aragnay inta inaan wax weyn ahayn toddobaadkaas dib uga dhacay micnaha kalendarka waxa laga yaabaa qadad isiraahdaan bisha 10keeda kalendarka ku qoray waa run saas ku talagalku ahaa laakiin 7 cisho asbaabaha awgood buu dib ugu dhacay sideedana waxa weeye sida standardka wasaaradda waxbarashadu ay imtixaanaadka u goysay waxa weeye bisha 6aad inuu horta imtixaanku dhinacna u dhaafin haddii duruuf kasta ku timaado sidaa darteed intaas jirta waxaan ardayda u rajaynaynaa guul. bismillaahir rahmaanir rahiim maanta oo ay taariikhdu tahay 6dii bishii 6aad 2023 waxaanu halkan kaga dhawaaqaynaa in imtixaankii shahaadiga ah ee fasalka 12aad iyo fasalka 8aad la qaadi doono 17 bisha 6aad 2023 imtixaanka waxa kala tirsiga wasaaradda ku qoran in la qaadayo 10 bisha 6aad ee 2023 laakiin shaqo qaran oo kale oo soo dhex gashay oo ah kaar qaadashada ay guddiga doorashooyinku ay ku hawlan yihiin oo dugsiyada loo adeegsanaya awgeed wasaaraddu waxay dib u dhigtay 7 cisho marka waxa la qaadi doonaa 17 bisha 6aad 2023 waxaana imtixaanka ka qayb galaya 41,000 oo arday oo isugu jira 16,000 oo arday oo dugsiga sare ka qalin jabinaya iyo 25,000 oo arday oo fasalka 8aad ka qalin jabinaya waxaan inta ku jirin 3,240 arday oo golaha wasiiradu uu go'aamiyay
in ay sidooda ku najaxaan oo imtixaankoodii sanadkii hore loo qiimeeyo duruufo gaara awgeed sidaa awgeed waxaan leeyahay ardayda imtixaanka gelaysa iyo kuwa uu golaha wasiiradu uu go'aamiyey inay sidooda ku najaxaanba labadaba waynu u hambaliyeynaynaa tacliinta aad ka qalinjabiseen ama aad ka qalinjabin doontaan ilaahay ha idinka dhigo mid aad naftiin iyo qoyskiin iyo dalkiin iyo diintaba ku anfacdaan waxa kale oo aan doonayaa inaan raaciyo intaa mar kasta oo hawle ay jirto lama waayo qof ama laba laga yaabo inuu khaladaad ka dhaco oo tusaale ahaan mararka qaarkood wasaaraddu waxay la kulantaa arday wax qishaya ama qof kale oo sidii loogu talagalay aanu maamulayn waxaan doonaynaa halkan in aanu ku wacino nidhaahno imtixaanku maaha dhib maaha ee waxaa la eegayaa oo keliya ardaygani ma bartay wixii ay ahayd inuu barto markaa dee adiga laftigaaga ayay kuu fiican tahay inaad isogaato intee leeg baad barata wixii laguu dhigayey sidaa awgeed fadlan waxaan idinka codsanaynaa wixii aad baratay uun meesha kaga jawaab wixii aanad garanayna dee ma garanaysid berigaanu yeeranayn waxaana lagu odhan jiray shahaadadu xaaraan bay kaa noqonaysaa haddaad imtixaanka gasho waayo ereyga qish ama cheating laftigiisaaba ah khiyaamo markaa shahaado aad khiyaamo ku qaadatay dee yay kaa noqonin shahaado waxaanad ujeediyay kaa noqonin imtixaankaa waxaanan ogahay ardayda iyo macalimiintuba iyo howlwadeenaduba inay si hufan imtixaankaa uga qayb qaadanayaan laakiin qof iyo laba hadduu jiri lahaa dee waxyaabo kale niyadda ku haya waxaanu kaaga digaynaa in sanadkan la adkeeyo hawshii oo ay ciqaabi ka dambaynayso lacala wacasa haddii ay dhacdo cid arrintaa ku kacdaa kastoo ku rajo weynahay inaan cidna ku kacayn aad baan idinku hambalyeynayaa waanan idin ducaynayaa asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu